maseertaa gabar maseerayso waa gabar aad subxaan allah maseer waa cudur maseer waa cudur qof aad ka naxaysiina laguma dhiirageliyo qofka maseeraana oo maseerka badanne wuu dhibtoodaa wax la isku dhiirageliyana ma aha wax qurxoonna ma waa wax foolxumo badan oo xanuun badan oo korkaaga dhibaateynayo oo caqiidadaada hoos u dhigaayo oo iimaankaaga hoos u dhigaayo oo waali dhaqanta ku noqonaysid gabaryahey wax qurxoon maaha maseerkiyaa lagugu qalqaalinin shaydaan ayay ka ahaatee wuxuuna ku abtirsadaa qof kasta oo maseer badan ibliis markii uu aadamka maseeray ayaa cirib ku yeelanaysaa ninkaaga hadduu dankaa galin ha u maseerin ee nabadgeliya ammaansiiya waxaa dhahdaa miya ahaa risiqani ilaaha bixiyo hore u socodha dadkaa raacisraa laakiin in maseer waa wax qurux badan lagugu dhiirageliyo oo idinka dhan u malaysaan wax fiican waa maseer oo maanta maseer oo nimankana loo naagta maseerka badan way ku jeceshahay waxaas waa jaahilnimo meesha ugu hooseysa ummad maanta inaa isku dhiiragelina maseer gabdhaha soomaaliyeed see maseerka looga saara inaan ka fikirna waay mahe nin ku dayacay aan ku rabin ama naag kula gursado dankaa gale oo daneyso hadduu xaqiisa uu kasoo baxay waajibkiisa kasoo baxay uu naag kula gursana ha gursado hadduu rabo laakiin inaa maseertid waa adduunka ku waalo maskaxdaada yartana gub adduunyadana nin laguma keenin gabaryeey may maqle nin laguma keenin adduunka runaa idin sheegaya nin adduunkan naag uma imaanin ninkii maseer badan kugu dilaa gudbaa dheh adduunka ilaahay cibaadou ii keenay ilmaha hadduu ilaahay kaa siiyana alxamdulilah haddii kalena wixii calafkaaga helaysaa laakiin in aan nin maanta maseer inaa maseerto qurux waa lagu dhaho oo gabadha maseerka badan waa qurux badan saa la dhaho oo u malaysay inaa maseerto ninka daba orogtay oo qurux tahay qurux maaha waa lagu waaloyaa waa lagu dilaa waa lagu bahdilaa adduunka ku baaba'e waana ku gubanay nin kasta oo maseer badan kugu dilana ka carar nimankane waa maangaabnimo naagta maseerka badan inay silcado adduunka ku silcado qurux waa lagu dhaha qurux maaha naag qurux ma aha in ay maseer badnaato waa inay safargaraynaysaa quruxa miya inay xanuunsan tahay ee dhibaatoonayso dhaawac korkeeda ku sabaysmanaya ee cibaadaysan weyso ilaahay ku xirnaan weysa ee ilaahay hilmaamta ee nin daba orodo maa lidinku dhiirigelina maa nimayo idinkana dumar ku dhiirigelineysaan ma adduunyada waxaa u imaanay nin naag anaga may maseer ma jiro waa cudur wuxuuna cirab ku yeelanaa shaydaan qof kastoo maseer kugu dhiirigeliyaan wuu ku baabi'inoyaa adduunyadana nin uma imaanin niyo adna naag uma imaanin naag inay maseertaana wax qurux badan maa waa wax foolxumo badan oo dhibaato ah adduunyadaneeti inaa maskaxdaada ilaashatid ooda iska gubin oo wadnahaaga nadiifsatid ooda dembi galin aa la rabaa laakiin qofka markuu maseerayo wuu waalan yahay waali waa maseerka sidiisa waa waali may maqlaysin maseer waa waali qof kastoo maseersan ma aragtay su u safar garayna wax ma ogo ilmahay dili karaa naagaa markay maseeraan ninka dili kartaa waay aa dhiirigelin ee u noqon kartaa marnabana maseer marnabana dhiirigelin maaha bliis joojiya ilaahay ka cabsada bulshada marin habaabkaa laga joojiyo naag yahay nin uma imaanin adduunkan ninyow adna naagta adi laguma abuurinoo ina ku cayaarta laguma abuurin inaa adigana waajib lagaa saaro si fiican u dhaqataa lagu saaramee inaa naagaa ku cayaarto ka maseersiiso qurux waa lagu dha naag maseersana waalna qeeqeelanayso marka dambena ilmaha dilaysa darajarada ka tuurayso ama cuntada gubayso oo guriga gubayso oo adi kaa daba ordaysa kaa daba qilinaysa taleefonkaasoo daba diraysa maanta dhan kaa daba wareegaysa maa quruxa naag inay waalataa maanta laga shaqeynaya miya war miirkiina cishta dumarka soomaaliyeed oo miirkiina cishta ragga soomaaliyeed oo iimaankiina soo cishta idinkane dumarka jaceyl ma aha inay dumarka idin daba ordaan ee maseer badnaadaan idinka soo daba ordaan niman akhyaar ahna naagtiisa kama maseersiiyo haddaa gursanaysana xaqa u leedahay waa gursan kartaa laakiin naag inaad ka maseersiisid oo waashid oo maskiinta ee ilmeeda kursan weyso ee adduunka ku waalato xaq ma aha dhiirigelina ma gasho bulshadana way dhiigaysaa way dhaawacan tahay bulshadeena maanta waxay u baahan tahay in loo istaago oo la dhaho ka kaca maseerka dumarka Soomaaliya haddii lagula gursado xataa ilaah u baneeyay ha gursado laakiin ha maseerin danayso dantaada raaco maxaa adduunka u timaaday inuu gursado ma adi adduunka u timaaday oo nin gursado adika daba maseertada orodid ilaah ma u baneynaha ujeeda ku jirto gursadeh danaysadeh war isdhisa oo ilaahay ka cabsada meeshan cibaadada loo imaaday ninna ma loo imaanin naqlaysiin aadaa uga xumaada cawada marka arka badanaa aniga ma soo qaata waxaan iga raalahaada qof aan gaara ka leeyahayna male laakiin arrinkan waa arrin aad iyo aad bulshada u dhibaateynayo oo aad iyo aad u xun
arrinkan hadday socotane dad badan ayaa masiirka qurux u maleynaa. Qurux ma baha masiir, waa foolxumo, waa cudur, waa sheedaan, waa dhibaato. qof ayaa nerviisa gubanaya iyo maskaxdiisa korkiisa guban, cimri degdeg ayaa ku dhacaya. gabdhaha markay masiiraha u aragteen, gabadha kama masiir marada adduunka ku safar garaysa ku dhibaataysanta. No way, masiir yaa lagugu dhiirigelin walaale, wax kale ha lagugu dhiirigeliyo, wax qabsi karti iyo danteeda raacataa iimaankeeda qabtaa ha lagu dhaho. way masiirtaa qurux waa. No way, ha yeelina. Assalaamu calaykum.